waxaan xasuustaa habeenkii aan ku kulannay dayaxa iftiinkiisa. Waxa uu ahaa mid astaan u ah adiga quruxdaada. Waa habeenkii aad qalbigayga si sir aad u gashay. Dhabtii waxaad noqotay neefteeda oo idil, iyo weliba sababta aan u noolahay. Waayo qasri waxaa dhisi karaa qof khibrad u leh, qalbina waxaa degi karaa qofkii qiimihiisa yaqaan. Habka aad ii dareengelisay waa midda keentay inaan mar waliba mudnaanta ku siiyo adiga. Ruuxii dhaayahaaga yaqaana ayaa dhibkaaga fikira. Dareenka jaceylka dhabtii waxa uu dhexlolanayaa badweynta caashaqa. Ma jirto meel aan u baxsado, haddana ma jirto meel aan aado. Waxa aad moodaa qalbigayga iyo ruuxdayda inay adiga kugu hareeraysan yihiin. Waxaan rabaa inaan kula wadaago riyadaas oo qabyaha adiga la'aantaaga. Waan ku jeclahay, berrina waan ku jeclaanayaa, inta ka dhiman noloshana waan ku jeclaanayaa. Xitaa geeridayda kadib waan ku jeclaanayaa, waaba hadday suurtagal tahay.